kormeerkan wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Soomaalida Galmudug mudane Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Xuseen Shir Bukhari ku gaareen fariisimaha ciidamada daraawiisha dowlad goboleedka Soomaalida Galmudug ku leeyihiin koonfurta gobolka Mudug bartamaha Soomaaliya ayaa ujeedkoodu ahaa qaymeynta iyo sidoo kale u korgulidda baahida ay qabaan ciidamada daraawiisha dowlad goboleedka Soomaalida Galmudug iyo kuwa deegaanka oo dagaal culus kula jira maleeshiyaadka qawaarijta iyo al-shabaab gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Xuseen Shir Bukhari iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe ayaa wadajir ula hadlay warbaahinta waxayna ku dhawaaqeen in Galmudug ka go'an tahay xoreynta deegaanada koonfureed ee gobolka Mudug gobolkan Mudug difaacay sharafta u soo hooyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu karaameeyay ayaga oo ay rabaan cadawgu inay duleeyaan oo ay rabaan gabdhaha iyaga iyo dadka iyaga iyo culimada iyada inay ahaaneystaan raggaan waa rag Ilaahay yadooda uu karaameeyay subhanahu wa ta'ala waxaan ognahay inay duruufo kala duwan ay ku soo shaqeeyeen waqti adag oo shabaab aan la diidi karin inay diideen waqti aad iyo aad u adag oo shabaab qof ka hor imaan kara uu jirin ayay ka hor yimaadeen aniga waxaan rabaa inaan kula dardaarmo taqwada Ilaahay ayaan ku guuleysan karnaa salaada inaan tukanaa ku guuleysan karnaa halka 2 sano adoo fadhiyay jihaad aaday shabaab madaxa isku diirteen tii Ilaahay ay timaado haddii xujo ku qabsato lagu yiraahdo shaqo fiican baa qabatay laakiin shaqadii qayb kamid ah ka maqan soo qasaar maahan xaaje walbo timaada iyo adeeg walbo yimaada iyo culaab walbo timaada dul qaado haddii aan dul qaadan lahayn meeshan aan samri lahayn meeshan maanta waxa weey gabdhaha iyaga waxa isku laba saddex u isku wadan lahaa nimanka khawaarijta oo shabaabka ah halka waxaan ku soo gaarnay waa samar iyo inaan dul qaadano alxamdulillah maanta Ilaahay baa mahad iska leh madaxweynaha qarankuna hadduu cilaamiyay dagaalkii si wada jir loo qayb qaato maamulkii Galmudugna sidoo kale safka hore uu ku jiro ummadii Soomaaliyeedna wixii anagu aan fahnay dhowr iyo 10 sano ka hor inay maanta ummadii Soomaaliyeed kulli ay fahansantiin alxamdulillah waay maanta in la biicigeynay qoorihii shabaab maanta in la biicigeynayo waa alxamdulillah aan hal mara alxamdulillah waxaan aad iyo aad maaragtay kaga mahad celinayaa inaad naftiina iyo maalkiina iyo waqtigiina aad u hurteen inaad iska celisaan khawaarijta markasta isku dayda inay ku soo xadgudubto ummadda Soomaaliyeed muddo ku dhow 2 sano inaad maaragtay ku jiri xirnaataan halkan deegaanadaas iyo muxuu ah dhammaan yaani jiidaas aad ka u faraha badan haddaad leedihiin culimo iyo haddaad leedihiin ciidan iyo haddaad caamal leedihiin inaad intaas ku sabirtaan ayaa Ilaahay sababa marka maantay waa jabeen khawaarijti maanta waa jabeen meesha Hiiraan iyo Shabeellada dhexe aad ogtihiin sida loogu jijiidayay muddadaas aad ku kaliyeysayteen markii hore oo aad ku dhibtooteen kaligiin oo aad ugu didaasheen inaad muxuu ahaa aad bartaan dadka inaad yaani la iska celin karo maanta waa ka tabaryar yihiin dagaalka waa si toos ah loo wada galayaa oo loo dhaqaaqayo haddii alla idmo ciidamadii kala duwanaa waa imaanayaan adinkana waxaa la idinka rabaa inaad muxuu ahaa si diyaar garowdaan oo si dhaqaaqdaan oo difaaciina isku sii jirinin oo haddaba sahankii aad sii badisaan xardheere waxaa la rabaa maalmo kooban in maaragtay gacanta lagu soo dhigo